dadaalada ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu ka geysanayso gaarsiinta bulshada xogaha muhiimka ah ayaa haysta tubta lagu xaqiijinayo suurtagelinta in muwaadiniintu helaan xogaha muhiimka xilliga ku habboon iyo goob kasta oo ay joogaan. xafiiska warfaafinta oo ay tahay muhiimadiisu isku xidhka xukuumadda iyo bulshada isagoo bulshada ka qabtiraya baahida dhinaca xogta ah isla markaana bulshada deegaanka Soomaalida gaarsiinaya qorshayaasha horumarineed siyaasadeed iyo istaraatiijiyadeed ee ay higsanayso dawladda dhexe iyo tan deegaanka Soomaaliduba si markaasi bulshada dhexdeeda loogu abuuro fahan midaysan lana kobciyo aragtida ku wajahan dhinacyada siyaasadda horumarka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada taasi oo ay weheliso dhisida muuqaalka wanaagsan iyo soo bandhigida waxqabadka xukuumadda ee dhinacyada kala gedisan iyadoo la adeegsanayo soo saaridda barnaamijyada kala duwan documentary filmyo waxaana bulshada loo soo bandhigay kayd maalo ka hadlaya natiijooyinka laga soo hooyay horumarka dhinacyadiisa kala duwan sida biyaha jidadka caafimaadka howlaha dhinaca tayeenta waxbarashada laga wado shaqo abuurka guryeynta iyo isgaarsiinta laydhka barnaamijyada dalag iyo daryeel dhaqa oo dheefso ilaalinta deegaanka sarreynta sharciga iyo ku dhaqankiisa iyo qaar kale iyadoo laga soo duubay 11 gobol ee deegaanka Soomaalidu ka kooban yahay taasi oo ay dheer tahay maamul magaalooyinka 6 ah mashaariicii ay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalidu ka fulisay. waxqabadka xukuumadda siyaabo kala duwan baan u gudbinaa war waa lagu gudbiyaa oo wararkaas bulsho waliba siday ku helayso aaladihii aan kuu sheegay baraha bulshada tiifiyada idaacadaha radioga jaraa'idiyada magaazinada intaaba xog baa lagu daawacaa lagu gudbiyaa kow baraha bulshada degala bara bulshaan leenahay oo dawladdu ay leedahay ka xafiiska xiriirka arrimaha dawladdu noqon kara ka wakaaladda warbaahintu noqon kara ka ashkhaastu ay gaarka u leeyihiin way noqon kara ka wuxuu noqon karaa xafiisyada deegaanka ee shaqooyin ka qabto ay ku leeyihiin baraha bulshada oo xiriir ayay leeyihiin waa xiriirka dawladda ayay leeyihiin xafiisyada maaragtay xiriirka dadweynaha ayay leeyihiin xafiisyada heer deegaan oo dhan degalada marka baraha bulshada waa la isticmaalaa waxa kale oo la isticmaalaa TV-yada kala duwan kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda qaab war qaab barnaamij iyo qaab documentary marka xogta la gudbinayo mid maalinle ayay noqon kartaa oo xogtii maalinlaha ahayd waxqabadkii dawladda ay noqon kartaa mid rubac lay noqon kartaa mid 2 rubac bay noqon kartaa mid 3 kwartar bay noqon kartaa mid sanad lay noqon kartaa xogahaas hadba sida loo gudbin karo ma waxay ku qurux badan tahay war in loo gudbiyo ma barnaamij in loo gudbiyo ku qurux badan tahay ma waxay ku qurux badan tahay documentary film in loo diyaariyo oo kayd laga dhigo ma waxay ku qurux badan tahay in qoraal lagu gudbiyo qoraal kayd galo sida jaraa'idka markii ugu horeysay 2 sano ee ugu dambeysay deegaanka waxaan ka bilownay jaraa'idii afka Soomaaliga ku baxo xogta lagu gaarsiiyo marka dadkii aan horay u soo sheegay Facebook aan wax ka akhrin karin aanan heli karin accesska in jaraa'idada lagu soo daabaco warbixinta iyo waxqabadka dawladda marka bille ayaa loo soo daabacaa jaraa'idka dawladda bille annagoo ku kabayna ku larayna waxqabadka xisbiga ayaa waxa loo qaadaa degmooyinka iyo gobolada ayaa loo qaadaa qaabka wana gudbina waxa jira magazines baa jiro xilliile u soo baxo magazineskan iyagu warbixina lagu daro brochures baa jiro yar yar oo xogta dawladda iyo waxqabadka dawladda lagu gudbiyo marka siyaabahaas marka la isku duwo hadda ka hor maanan u habaysnayn sidaas xogta ama sheegidda waxqabadka dawladda xilliga hadda lagu jiro tooliska kala duwan haddii aanan la isticmaalin dadkii lama jaan qaadi karaan wacyiga iyo xilliga waxaana ka soo baxaya waxqabadka oo la sheego waxa soo baxay goldololooyinka soo baxay meesha tusaale ahaan ceel baa laga qabtay mustaqbalka xukuumad ahaan waxaan sameynay resource mapping baan sameynay horumarkeena ma meel buu ku urursan yahay mise deegaanka si feer ah ayaa looga wada dhex muuqda hadda kadib waxaan noo qorshaysan waxa weeye resource mapping maadaama aan sameynay qaabka qorsheynta horumarka iyo ku salaynta baahiyaha daruuriga ah halka looga baahan yahay maareynta xogta dawladda iyo kobcinta awoodda isgaarsiinta
xafiiska ayaa in muddahaba ku howlanaa soo ururinta xogihii sooyaalka xukuumadihii kala gedisnaa ee soo maray deegaanka Soomaalida iyadoo lagu soo guuleystay in gacanta lagu soo dhigo cajalado gaaraya 780 cajaladood oo isugu jira kuwii hore iyo dhexe intaba waxaana dadaal la geliyey sidii xogtaasi loo casriyeyn lahaa maadaama ay ku kala duwanaayeen cajaladihii hore ee VHS loo yaqaanay iyo mini DV oo iyaguna ahaa noocii dhexe dhinaca isticmaalka oo iyagana haatan laga baxay waxaana ilaa haatan lagu guuleystay rogidda 150 cajaladood ee nooca VHS-ka loo yaqaano ee qadiimiga ahaa iyo 200 oo xabo oo nooca mini DV loo yaqaano oo noocii dhexe ahaa halka ay socoto rogista qaybaha kale dhammaantoodna laga heli karayo marxaladihii kala gedisnaa ee ay soo martay xukuumadihii ka soo arrimin jiray deegaanka Soomaalida. waaxdan marka ugu horeysa waaxda maareynta xogta dawladda kobcinta awoodda isgaarsiintu waxa ay u asaasan tahay oo ay leedahay saddex ujeedo oo muhiim ah. saddexda ujeedo oo muhiimka waxaa ka mid ah in xogta dawladda la soo ururiyo, la casriyeeyo, la habeeyo, la baahiyo iyo in xogta lafteeda loo sameeyo darajiyo standard oo maad aragtay xogta la sii deyn karo iyo midaan la sii deyn karin ay ku kala soconaato. xogaf badan waxaa jira unauthorized la yiraahdo aan la sii deynin iyo kuwa authorized oo la sii deynayo oo la baahinayo bulshada la gaarsiinayo. sidoo kaleeto in warbaahinta laftooda gaar ahaan warbaahinta yaryar ee multimedia loo yaqaano shirkadaha la yiraahdo communication consultancy-ga la talinta warfaafineed ayaga laftooda inaanu siidno leysin iyo fasax ay ku dhaqdhaqaaqaan isla markaana aanu samayno darajo iyo standard iyaguna ay kala sareeyaan. sidoo kale waxaa intaa markii la sameeyo kadib waxaa ujeedada saddexaad noqonaysaa in kobcinta awoodda xiriirka dadweynaha iyo warbaahinta xubnaha xiriirka dadweynaha iyo warbaahinta deegaanka oo dhan awooddooda fulineed loo kobciyo iyadoo laga duulayo xogaha la habeeyey, la kaydiyey, la maareeyey, darajada la siiyey iyadoo base looga dhigayo in standard iyo darajo loo sameeyo ayay noqonaysaa. marka sanadkan waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee aan soo ururinay ama xogta aan qabanay waxaa ka mid ahaa inaan cajaladaha gaboobay oo 3 ama 4 nooc isugu jira oo xafiiska dhex yaalay oo ay ka mid yihiin xogaha cajaladahaas ay ku jiraan xogaha waagii hore ee warbaahinta deegaanka ka jirin xogihii aan u diri jirnay EBC ama laanta afka Soomaaliga warbaahinta EBC dibadeed markii la aasaasay wakaaladda warbaahinta deegaanka Soomaalida iyada lafteeda waxay xogihii la siin jiray laamaha kala duwan Radio Fana laanta Harar ETV EBC in xogihii oo dhan waagii hore loo diri jiray iyo xogta deegaanka oo dhan oo laga soo bilaabo 1992 tirsiga taariikhda Itoobiya ilaa iyo hadda aan ururina xogahaas marka waxay isugu jiraan 3 nooc oo cajaladaha kuwii waaweyn oo waagii hore qarniyo ka hor waxa lagu duuban jiray VHS baa la yiraahdaa. VHS-ka waxaan ku guuleysanay inaan rogno ilaa 150 cajaladood oo 1992 ilaa iyo xilli dhow cajaladaha yaryar ee mini DV-ga la yiraahdo loo gudbeeyey ee lagu shaqayn jiray kuwan hadda cajaladahan dhabarkayga yaalla kuwan waxa weeyaan CD-ga caadiga ahaa isagana computerka la gelin jiray. CD-yada ayagana waxaa ku kala jira xogo qoraal iyo muuqaalba ah. xogaha qoraalka waxay isugu jiraan warbixino, qorshayaal, daraasaadyo, cilmi baarisyo kala duwan oo deegaanka laga fuliyey oo waa xogihii xafiisyada dowladda deegaanka Soomaalidu noo soo diri jireen xubnaha xiriirka dadweynuhu ay soo diri jireen oo aan kaydinay. cajaladahan iyagana mini DV-ga ee dhabarkayga yaalla 200 oo xabo ayaa iyagana la casriyeeyey oo xogtooda la rogay. xogaha ugu muhiimsan ee cajaladahaas ku jira waxaa ka mid ah
kala fadhiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka dowladdeegaanka Soomaalidu kala fadhigii labaad ee golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida markii la aasaasay deegaankaba kala fadhigii labaad ayaa ku jira waxaa ku jira asagana xisbiyadii kala duwanaa deegaanka soo maray sida Lego oo kale sida SDP Somali Democracy Party sida ONLF xisbiyada dhammaan noocaas oo kale ah iyo waxqabadyadoodii doodahoodii iyadana waxaa ka mid ah bayaanka xeerka madaniga ah ee dowladdeegaanka Soomaalida oo dhan markii la ansixinayay xogihii looga doodayay lagu faraqeynayay xeerka madaniga markii 1983 intii aysan EPRDF soo gelin waddanka Itoobiya kama jirin xeer madaniga dastuurka laga soo drive gareeyay marka waxa ka jiray waxa la yiraahdo xeerka madaniga si dadban ayuu jiray bay ka dhigan tahay nidaamkii boqortooyada kii lagu dhaqmi jiray kaasoo marka dib markii loo habeeyay iyadoo dooda kala duwan laga hayo sharci yaqaan iyo mas'uuliyiin madaxda kala duwan ee deegaanka soo martay laga soo bilaabo Cabdishiid Duulane waxa la yiraahdaa Daawud Maxamed Cali Cabdullaahi Xasan kulli step by step iyadoo ah xubihii ugu muhiimsanaayee dhinaca wax soo saarka xoolo dhaqatada reer guuraaga magaranaysaye barnaamijka BSMB waxyaalahaas oo dhan xogahoodii xilliyadaas lagu ansixiyay ayaan haynaa oo aan casriyeynay oo aan doonayna sidii loogu baahdo inay magaranaysaay loo sameeyo xafiiska ayaa dardargelin baaxad leh ku wada dadaalada lagu xoojinayo soo bandhigidda xogaha muhiimka ah iyo waxqabadka xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ee dhammaan heerarka kala duwan ee qaab dhismeedka deegaanka iyadoo la adeegsanayo warbaahinta qaybaheeda kala duwan lana xaqiijinayo dhisidda dimuqraadiyadda iyo xorriyatul qowlka halka la raacayo shuruucda iyo habdhaqanka saxaafadda u dejisan waxaana xusid mudan in la adeegsanayo taba kala duwan oo xogaha bulshada lagu gaarsiinayo ha noqoto TV-yada idaacadaha wargeysyada iyo baraha bulshada intaba xorriyadda hadalku waa xuquuq asaasi ah marka koowaad xuquuqda asaasigana waxay ku dhigan tahay dastuurkay ku dhigan tahay qofku ama shakhsi ha noqdo ama koox ha noqdaan xorriyadda hadalku waa xuquuq dimuqraadi ah weeye oo dastuurka waddanku uu maaragtay fasaxay hadda ka hor iyadoo dastuurka si fiican ugu dhigan ayaan la ogolayn in xorriyadda hadalku iyo warbaahinta iyo idaacaduhu ay sidii loogu talagalay u shaqeeyaan in ashkhaastu afkaartooda ay gudbiyaan in kooxuhu ay gudbiyaan xuquuqda hadalkooda marka dowlad ahaan muddadii isbeddel ka dambeysay waxyaabaha tallaabada laga qaaday guldulolooyinka systemkii hore loo arkayay waxay ahayd dal ahaanba in xorriyadda hadalka ay jirto dhinaca wargeyska xilliilaha xafiiska ayaa soo saara wargeyska Shabeelle kaasi oo loo daabaco si xilliilaha markiiba 1,000 xabo taasi oo ay weheliso wargeyska Hawraarsan oo bishiiba 1,000 xabo xafiisku soo saaro intaasi waxa raacsan buug sanadeedka looga hadlayo waxqabadka xukuumadda ee sanadkaasi oo isna la soo daabaco 1,000 nuqul oo bulshada la gaarsiiyo kuwaasi oo xambaarsan fariimo muhiim ah oo bulshada u ifinaya hiigsiga iyo himilada xukuumaddu bulshada ku horumarinayso waxaana intaasi dheer samaynta fariimaha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban oo ka turjumaya hadba wadciga taagan oo laga baahiyo warbaahinta qaybaheeda kala duwan waaxda shaqooyin muhiim ah ayay qabataa waxaana magaceeda wasada ka dhadhamaysa loo yaqaanaa waa waaxda warbaahinta daabacadda iyo electronics taa macnaheedu waxa weeye waxaa loo wixii daabacad la xidhiidha wargeysyo buugaag annual books magazines brochures pamphlets calendar buugga xusuus qorka waxaa loo wixii daabacad oo dhan qaybta warbaahinta daabacadda marka sanadkii waxaan qabanay sanadkan hadda gabagabada maraya waxaan qabanay sanad walba bil walba waxaan soo saaranay wargeyska loo yaqaano Hawraarsan 2,000 oo cadad xilli wargeyska Shabeelle xillilahaana halkii bishii labadii rubciiba hal mar
ayaan isagana soo saarinay. annual book baan soo saarnay, book loo yaqaano buugga xusuus qorka iyo table calendars. waxyaalo fara badan baan soo saarno, intooduba tilmaamaya ama gudbinaya fariimaha waxqabadka xukuumadda. nuxurka ugu muhiimsan waxa weeyaan shacabkeenu inay xogta by any channel, jiha kasta ama waddo kasta oo xogta ay ku heli karaan shacabkeenu inaan ku gaarsiino. qaybta daabacaddu marka waxay door muhiim ah ku leedahay, meel fog ayay gaadhaa oo ummaddeenu si wargeyska si kala qaadanaysa oo qoraaladu kala ayaa meel fog u gaadhaya. marka intaas daabacadan soo saarnay oo dhan sanadkan dhammaaday xogihii muhiimka ah ee deegaankeena ka dhacay, kuwii waxqabadka xukuumadda la xidhiidhayay, natiijooyinka ay xukuumaddu 6 bilood iyo sanadka gabagabada maraya ay ka soo hoysay qorshihii waxqabadka xukuumadda ee sanad miisaaniyadeedkan ayaa intaba ka dhexdhadhamaya. jihaynta warbaahinta ka howlgasha gudaha dowladda deegaanka Soomaalida ee sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah ayuu xafiisku xil iska saaray kobcinta iyo weliba kor u qaadida xirfadeed ee howlwadeennada ka howlgala bahda saxaafadda ee dawliga ah iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay. waxaana la siiyey cashiro iyo duruus la xidhiidha culumta iyo sharciyada warbaahinta dalka u dejisan iyo tan caalamkaba, taasi oo ka muuqata kaalinta ku habboon ee ay ka qaateen horumarinta dimuqraadiyadda iyo xorriyadda saxaafadda. waxayna si buuxda uga qayb qaataan dhisidda wacyiga bulshada iyo u istaagidda danaha guud, taasi oo ay dheer tahay inay bulshada ka wacyigeliyaan halista dhaqamada xunxun iyo xanuunada sida fudud looga hortagi karo. sidoo kale soo bandhigidda waxqabadka xukuumadda ee dhammaan dhinacyada waxqabadka xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ee heer gobol, degmo iyo tuulo intaba. muuqaalka wanaagsan ee deegaanka in marka hore uu ka muuqdo xafiiskan wajahada uu aasaasan yahay. marka xafiiskani uu wanaagsanaado oo muuqaalkii wanaagsanaa uu ka muuqdo xafiiskan, ayaa bulshaduna muuqaalkii waxqabadka ay ka dhexeli kartaa. haddii aan kuu faahfaahiyo bulshada sideeba xogta loo gaarsiiyaa, xogtu sideedaba wakhtigan la joogo waa waxqabadkii xog haddii aanan laga haynin waxbaan qabtay ma odhan kartid. waxqabadkaa markaa hal meela wax kama qabanno. deegaanku wuu ballaaran yahay, deegaan marka la barbar dhigo dalal badan ka weyn weeye. horumarkiisii la garanaya halka uu joogo, maaragtay dib u dhacsan. inagoo dal ahaan dib u dhacsanayaan, deegaan ahaanna dib u sii dhacsannahay. nidaamkaan dhaxalnay, ragaadkiisii iyo wixii aan ka dhaxalnay dhinaca horumarka, dhinaca nabadgelyada, dhinaca xorriyatul qowlka, wax badan meeshii aan ka dhaxalnay kolka la eego meel ebera baan taagnay. in halkaas markaa xilli kooban deegaankii aan ku horumarino aan ku barwaaqayno waa qariib weeyaan. marka inagoo xafiis ahaan waxqabadka deegaanka ee kooban, weliba iyadoo caqabado badan ay jireen muddadii isbeddelka dambeysay oo taabagalka deegaanka Soomaalida, waxaan odhan karnaa waxa lagu guulaystay nabadgelyada wey. deegaanka ugu xasiloon dalka, sidii loogu talagalay bulshadiisa iyo xukuumaddiisuba ay isula jaan qaaday. waxgaradkiisa, dhaqankiisa, culimaadiinkiisa, dhalinyartiisa iyo maaragtay bahwadaagtoodaba ay isula jaan qaadeen inay u baahan yihiin nabadgelyo. marka hoosta laga xariiqay inaynan gorgortan gelaynin nabadgelyadu. xidhiidhka dadweynaha waxaa markii ugu horeysay la dardargeliyey sidii loo howlgelin lahaa howlwadeennada xidhiidhka dadweynaha ee xafiisyada dowladda deegaanka Soomaalida ka howlgala si ay bulshada ula wadaagaan waxqabadka xafiis kasta. kasakow maqaamka uu kaga jiro shakhsiga u qaabilsan xafiis kasta xidhiidhka dadweynaha inuu yahay afhayeenka xafiiska u matalayo, ayaa waxa uu u taagan yahay horumarinta tabaha kor u qaadidda sumcadda xafiiskaasi ka dhigaysa mid ku daysho mudan. waaxdan sanadka 2015 ee tirsigeena dalka waxaa uu qabsoomay waxyaabo muhiim ah runtii oo arki kartiin oo la taaban karo. waxaan qabanay waxyaabaha ugu muhiimsan aan qabanay waxaa kamid ah dood cilmiyeed lagaga hadlayo nabadgelyada iyo arrimaha guud kaalinta ay shacabku leeyihiin nabadgelyada.
sidoo kale waxaanu qabanay oo waxaan ku guulaysanay barnaamijka dalag iyo daryeel oo dhinaca beeraha xilligii loo baahnaana barnaamijkaasi aan qabanay runtii deegaanka ka dhacay ayaa ah mid u horseeday jiha cusub shacabka dowladda deegaanka Soomaalida. Isbeddelkii ka hor ayaa deegaanka Soomaalidu wuxuu ahaa meel ay ka caaganayd warbaahintu, haatanna ay saxaafadda deegaanka uga howlgasho hannaan ka turjumaya furfurnaanta iyo isbeddelka muuqda ee ku yimid dhinaca saxaafadda, taasi oo marag u ah hirgelinta xorriyadda saxaafadda. shacabka ayaa si xor ah dareenkooda u cabira, taasi oo ku tusinaysa tallaabada wax ku oolka ah ee dhinacaasi laga soo hoyey. Ha yeeshee ay jiraan shakhsiyaad ku haftay xorriyadda saxaafadda oo aan xirin shuruucda iyo xeerasha u dejisan, taasina ay ku tusinayso faham la'aanta ka haysata dhinacaasi oo ay tahay inay iska saxaan una hoggaansamaan xeerasha iyo bayaanada dalka iyo deegaanka ee dhinacaasi la xidhiidha. hadallada nacaybka annagoo ku salaynayn in wax walba ay damaanad lahaadaan, sida shakhsigu sharcigu damaanad u siinayo xorriyadda hadalku inay damaanad lahaato, idaacaddu inay damaanad lahaato, sharci la lahaado, cid walba xayndaabka sharciga iyada oo ku jirta wixii ay doonta ay ku hadasho. laakiin xayndaab sharci innagoo aanan ku wada jirin oo idaacaddu intay Kenya ka soo talawdo ama Muqdisho ka soo talawdo waxay doonta ay sheegaysa xorriyad hadal ayaa la dhiirigelinaya. lama odhan karo xorriyadda hadalka waxaa lagu dhiirigelin karaa in marka hore dhammaanteen aan ku jirno xayndaabka sharciga, cid walba sharciga ay u hoggaansanto, aanan laga sheekaynin hadallada nacaybka, aanan laga sheekaynin waxyaabaha dhaqankeenna lidka ku ah, dadka aanan la caayin, waxyaabaha diinteenna lidka ku ah, dadka aanan la aflagaadeenin, beenta aanan la sheegin, dadka aanan la masabidin, iyadoo hay'adihii baarista ee dowladdu ay shaqaynayaan, iyadoo hay'adihii musuqmaasuqa ee dowladdu ay shaqaynayaan, iyadoo warbaahintii kala duwan ay shaqaynaysaan, inay shakhsiyaad intay qof shaxaad u doontaan markay ka waayaan ay dhahaan hebel waa tuug wax uu xaday keligiibu lacagta cunaa la yidhaah, oo in la iscaayo ay ku salaysnaato in dan la kala helo. maanta qofku dan markuu kaa helo uu ku ammaano, haddii uu dan kaa waayo uu ku caayo, waxyaabaha xorriyatul qowlkeenna sida khaladka ah u turjumay ayay ka dhigan tahay. marka waxaan bogaadinaynaa dadka fahansan xorriyatul qowlka iyo ahmiyadda uu leeyahay jiritaankeenna iyo kobceenna dhaqan, kobceenna diimeed. bulsho muslina baan nahay, waa inaan dhinac walba ka eegna waxa aan jideynayno diinteenna iyo dhaqankeenna wax ku habboon ma yahay. marka qodobka xorriyatul qowlka in dadku waxay u fahmeen xorriyatul qowlku inuu yahay in dadka la aflagaadeeyo, la caayo, in institutionada dowladda ama qaab dhismeedka dawliga ah la caayo, in xafiisyada la aflagaadeeyo, iyadoo marka kolkaad tixraac ku samaysid aflagaadadaasi ay dana shakhsiyadeed ay ku dhammaanayso. qofku wax sheeganaya hebel eedinaya hebel caaya dan shakhsi ay ku dhammaanayso. marka waxaa la sameeyaa tusaale ahaan tiifiyada laga soo daaya waxa la yidhaahdo weydiimaha fikirka shakhsiga ama fikirka dadweynaha. markay koox noqdaan dadweyne noqon dabcan, markay ashkhaas la wareystaan shakhsiyaad bay noqonayaan. xiriirka dadweynuhu waxay si joogta u sameeyaan public opinions, afkaarta dadweynaha, kuwaas waxaa lagu soo ururiyaa cabashada dadweynaha, waxaa la horgeeyaa xafiisyada iyo dadyooga laga cabanayo ama qaab dhismeed ha noqdo ama institution ha noqdo, waa la horgeeyaa. waxaa la yidhahdaa dadkii waxaasay ka cabanayaan, maxaa jawaabahooda haysan, iyadoon mid laga jarina waa la soo daaya. taa waxaa lagu kobcinaya oo lagu xoojinaya xorriyatul qowlka iyo dadku inay hadlaan, fikirkooda inay soo dhigaan. waxaa noo qorshaysan 2016 haddii alla idmo si joogto ahna loo sameynaya, haddii alla idmo warbaahinta dowladdu inay ka shaqayso cabashooyinka xagga hoose ka jira, iyadoo la waraysan doono adeega aasaasiga ah dadku siday u helaan. adeegyada aasaasiga waa jiho xukuumadda iyo xisbiguba ay qaateen in annaku hadda kadib aan si joogta u sameynayno warbaahinta dowladdu leedahay iyo kuwa gaarka loo leeyahayba dabcan ee sharciga inay sameyn doonaan adeegyada aasaasiga maxaa dhaliilaha ka jira. mas-uulkii loo igmaday markaa la horgeeya dhaliilaha waxa ka jira inuu isaguna baalaansi garayo, ma saxba ma qaladba, wacyigelin uu ka bixiyo wixii markaa iyagu ay ka gaabiyeen si degdeg ah
shacabkii cabashada qabay jawaab degdega loo siiyo marka adeegeenna waxaan ku kobcin karna waxa weeye inay dadku cawdaan inay dadku xorriyadooda ka hadlaan inay dadku adeegooda dhaliilaan inay dadku adeegooda bogaadiyaan dhaliil kaliya maaha xorriyatul qowlkiiba waxaan ka baranay dhaliilid iyo afuuf iyo aflagaadawn xorriyatul qowlku waxa weeye wixii jiran in la sheego wixii aan jirinna laga reebanaado wixii aan jirinna ee been ee ceeb ah dhaqankeena ku wanaagsaneyn in laga tago wixii jirana hadduu dhaliil yahay iyo hadduu wanaagsan yahay in laga hadlo marka aan isbarbar dhigno maxaa wanaagsan oo noo qabtay maxaa wanaagsan oo naloo qabtay maxaa laga gaabiyo oo aan la qabanin si loo qabto wixii aan laga gaabinin taasoo ay ku hoos duugan tahay amnigii dadku maaragtay inaanan la caburinin dadku inay xorriyad ay helaan mid shakhsiya mid kooxeedba inay bulsho ahaan xor damiirka ka ahaadaan damiirka aan ku celcelinaynaa weliba dadku inay aaminaadooda xor u ahaadaan iyaga oo aanan dhibaataynayn ashkhaas kale marka iyada oo aanan hadalkooda ku dhibaataynayn dad kale inay dadku afkaartooda soo bandhigi karaan marka ballaarinta iyo dhisidda idaacadaha xafiiska warfaafinta dowladda deegaanka soomaalida uu ka duulaya sidii bulshada deegaanka ay u heli lahaayeen xogaha muhiimka ah miyi iyo magaalaba ayaa waxaa laga hirgeliyey 4 idaacadood magaalooyinka Goday, Doolocado, Hadhagaale iyo Fiiq halka ay bulshadu ka dhageysan karaan masaafooyin kala 70 ilaa 60 inta u dhaxaysa intaasi oo ay weheliso in 2016 loo sameyn doono idaacado hadduu eebaha awoodda leh ogolaado magaalooyinka Mooyaale iyo Wardheer waxayna ku soo kordhin doonaan idaacadahani abuuridda faham midaysan oo loo yeesho howlaha horumarka nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo weliba kobcinta garaadka bulshada annagoo diyaarinayna daraasad ku saabsan adeeg bixinta xafiisku qabto iyo fahanka ay ka haystaan ayaa waxaan tiim kala dirnay 60 magaalo deegaanka si bal ay fahanka ay ka haystaan waaxda daraasad adeeg bixinta xafiiska uu bixiyo ayaan tiimkii u dirnay iyagoo questionnaire iyo waraysiyo khaas ah ay sameeyaan kabacdina waan la iskaranay result fiican baa nooga soo baxay sidoo kale aan sameynay daraasad labaad daraasadka labaadna wuxuu ku saabsanaa dhaadhicinta qaab dhismeedka xafiiska maadaama xafiiskan warfaafintu uu ku kooban yahay heer deegaan oo kaliya bal fikirka laga qabo haddii la dhaadhiciyo ilaa heer gobol heer maamul magaalo ilaa heer degmo qaabka haddii la gaarsiin lahaa daraasad nooca ku saabsan buu yahaa kana run ahaantii fikrad fiican baa ka soo baxay waan la wadaagi doonaa insha Allah si guud daraasadka saddexaad wuxuu ku saabsanaa ku saabsanaa waxqabadka xukuumadda 60 maamul magaalo ay ka qabatay markaan leenahay waxqabadka xukuumadda ee mashaariicaha horumarinta ku saabsanaa mashaariicaha horumarinta ha noqoto dhinaca wadooyinka waxbarashada isku dhafan horumarka isku dhafan ku saabsanaa 60 maamul magaalo dabeedna daraasadkaas sidoo kale wuxuu ku jiray oo macnaha xog waran ku jiray waxqabadka dhinaca xukuumadda ee shaqo abuurka bilicda magaalooyinka isgaarsiinta adeegyada basic oo dhan baa ku jiray runaantiina waxyaabo fara badan bay xukuumaddu ay ka qabatay si bulshada loola wadaago natiijada ka soo baxda ayaabaan daraasadkaasna sidoo kale aan ka diyaarinay waxa sidoo kale haddaan inta ka gudbo waaxda daraasadka waaxda labaad ee shaqada ay qabato waaxdan waxa kamid ah waaxda horumarinta aaladaha casriga waaxdan horumarinta aaladaha casriga waa waax kamid ah qaybtan waana qaybta ka shaqeysa macnaha aaladaha sida plasma TV-yada waaxdan waa 60 magaalo ay badanaa marka focus ka saaraysaa runtiina ilaa 4 magaalo ayaaba plasma TV-yadii laga hirgeliyay 2014 ilaa 15 laakiin 14 ilaa 16 laga hirgeliyay walow aan sanadkan dhowtoolaan dayactiro fara badan iyo waxyaabo badan aan ku sameynay runtiina waxa noo dhiman 2 maamul magaalo oo kamid ah oo gaarsiin doono insha Allah haddii la qadaro plasma TV-yada oo insha Allah haddii la qadaro qorshaha 2016 ugu jirta labada maamul magaalo ay kamid yihiin maamulka magaalada Qabri Bayax iyo maamulka magaalada Togo Jaale insha Allah iyagana sanadkan 2016 ayaga qorshaha ugu jiraan waaxda saddexaad haddii aan ina sidoo kooban soo dhigo waaxda fidinta waaxda fidinta isgaarsiinta runtiina waaxda waa wax aad muhiim ah oo kamid ah biilalada xafiisku taagan yahay
waaxdana waa waaxda idaacadaha ka shaqeysa idaacadaha bulshada waxaan ama afka qalaad loo yaqaano community radioga run ahaantiina community radioga waaxdan tan iyo intii isbedel ku dhacay waxaa la hirgeliyey aduu 4 idaacadood 4 idaacadood haddii aan ku horeeyo 2 idaacadood iyagoo sidooda u dhammaystirnaayeen oo insha Allah waa idaacadda goday community radio iyo sidoo kale dowladda community radio xafiisku waxa uu door muhiim ah ka qaadanayaa sidii bulshadu u noqon lahayd mid ku horumarsan dhinaca xogta isla markaasina ku baraarugsan ka qayb qaadashada arrimaha siyaasadda nabadgelyada horumarka iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee ka hana qaaday dalka iyo deegaankaba waxa uuna matala afhayeenka dowladda deegaanka Soomaalida isagoo uu awood u leh soo ururinta duubidda iyo baahinta xogaha muhiimka ah ee dowladda isla markaasna qaab kala duwan u faafiya haddaba taasi iyadoo laga duulayo ayuu xafiisku si joogto ah u baahiyaa xogaha muhiimka ah ee lagu soo bandhigo arrimaha bulsho siyaasadeed iyo dhaqaale iyadoo la adeegsanayo bogagga baraha bulshada ee xafiiska warfaafinta dowladda deegaanka Soomaalidu ku leeyahay waaxdu waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah baahinta fariimaha muhiimka ah ee xukuumadda iyadoo kor loo qaaday muuqaalka wanaagsan ee deegaanka si bulshadu aynan u helin marnaba xogo marin habaabinaya oo yacni keeni kara maxaan ku dhahay isku dhacyo qabeen balse xogta dhabta ah meesha laga daalacan karayo maadaama ay tahay xafiiska warfaafintuna uu yahay yacni afkii dowladda xogta saxda ah meesha loogu imanayo waa bartaas waxaan haddaba samaynaa barnaamijyo yaryar oo gaagaaban oo fariimo ahaan dadka bulshada loogu gudbinayo iyadoo kuwaasi maxaan ku dhahayay aan joogtayno haddana waxaa dheer reporting system 24 hours reporting systemka marka saad ogtihiin baa xafiiska communicationku inta badan wuxuu xidhiir leeyahay komishinada communicationka federaalka iyo dhammaanba kilada kale communicationadooda sidaa darteed qiimayntii hadda ugu dambeysay maxaan ku dhahayay heer federaal iyo heer kilil ba ahayd aanu ka qayb galnay waxaa la bogaadiyey xafiiska warfaafinta deegaanka Soomaalidu inuu ka horeeyo gudbinta xogta dowladda sidii loo baahnaana inay reporting systemka ay waqtigeeda ay u ilaaliyaan isla markaana kililada kale iyo deegaanada kale inay ay kaga daydaan Soomaali kilil reporting system yaan qiimayntii ugu dambeysay hadda ku qaadanay iyadoo ay xaqiijiyeen gudiyadii inuu yimiday ee halkan kormeerka ahaan inuu ugu yimiday iyadoo ay xaqiijiyeen haddana waxaan is dhihi karnaa waaxdu waxay ku guulaysatay inay ka midho dhaliso guud ahaanba shaqooyinkii u yaalay min bilow ilaa bardhamaad insha Allah sanadka soo socdana waxaan isku daynaa inaan si laba jibaarno shaqooyinkii noo yaala xafiiska uu u taagan abuuridda nidaam hufan oo midho dhal ah oo ay shacabka iyo dowladdu isku weydaarsanayaan xogaha labada dhinac taasi oo u horseedaysa in deegaanku ku horumaro dhinaca xogta iyo ka qaybgalka howlaha muhiimka u ah qarannimada ugu dambaysa waxa weeye xisbi ahaan waxaan awoodda saarnay qaab dhismeedka dowliga inaan dhisno institutionada in la dhiso institutional buildingka waxa la yidhahdo dhisidda nidaam hay-adeed oo dadkeenna hadda kadib loogu adeego nidaam hay-adeed oo qurux badan xafiisyada inaan dhisno muuqaalkooda la dhiso human resourcegooda ama cududooda shaqaale la dhiso shuruucdooda la dhiso dadka waxa u adeegaya hadda kadib ay noqdaan qaab dhismeedyada dowliga xafiisyadu ay noqdaan kuwa aanan saameynin siyaasadda ma aragtay qaab dhismeed ahaan dadku aynan dareemin adeegooda bulsho in uu siyaasad ku xidhan yahay adeegu mid ay bulshada helaan uu noqdo taana in dadku ay ku baraarugsanaadaan muuqaalada xafiisyadeena hadda waa la wada wanaajiyey reformyo qabyo oo qaybna la sameyn doono qaybna horey loo sameeyay baa jiro lagu saleeyay cududda shaqaale ee dowladda inay noqdaan kuwa bulshada adeegooda ugu adeegi kara aqoontooda iyo kartidooda iyo khibradooda iyo aragnimadooda lana sii xoojin doono marka inahaasoo la isu geeyo waxaan rajaynaynaa bulshada deegaanku inay helaan adeega asaasi ah hiigsiga inaguna wuxuu yahay bulshada deegaanka oo dhinac walba ka barwaaqowda